السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaan waa idin wada salaamay akhyaarta ku xiran janalkeena Zack Multimedia maanta waxaan rabaa muuqaalkani kooban inaan idinkula wadaago shape animations runtii inta badan waxaan aragnaa waxyaabaha aad u quruxda badan waxa ku jiro waxyaabo loogu magacaabo graphic motionska inta badan graphic motionska waxyaabaha laga sameeyo inta badan waa shapeska hadday ahaato rectangle tool ellipse tool iyo pen tool kaba oo inta badan laga sameeyo ayay inta badan ay yihiin waxyaabaha ku halmaala graphic motionska kuwaasi aan ku soo sheegay dhamaantood waxaa jiro animations ayaga loogu talagalay kuwaasi aad iyo aad u muhiimsan una muhiimsan qofka graphic motionska in uu wax badan ka ogaado haddii aad tahayna graphic motion aad iyo aad ayuu ku caawin doona muuqaalkani waxaa laga yaabaa in wax un aad ka qaadato sidiisa badan macalinka wax yar ayuu ku bidhaamiyaa inta kale waa adiga iyo juhdigaaga inaad geliso ayaa lagaaga baahan yahay marka ku soo dhawaada muuqaalkani daawasho wanaagsan ugu horreyn waxaan soo furanaynaa softwarekeena Adobe After Effects ayaan soo furanaynaa ugu horreyn marka waxyaabo yar ayaan intaan aan ku baraatikeeyay marka ugu horeyso kan waa shape-kii afraad laakiin ma rabo waxaan rabnaa marka ugu horeyso sida u jeedo waa circle waa shape oo circle ah laakiin waxaa ku jiro animation iska yar ayaa ku jira sida u jeedo waa animation sidaan u tirtirmayo kale ayaa ku jiro marka kan sidee ayaan u sameeyay ugu hore marka aad iyo aad ay u fududahay marka ugu horeyso waxaad tegaysaa dhankaas iyo shapeska markaad aad klikta aad dhab aad siiso kaliya waxaad dooranaysaa ellipse toolka ugu hore marka waa inaad iska xirtaa fiilka sidee ayaad iskaga xiri kartaa kaliya waxaad ku dhufanaysaa fiilka kadib waxaad leedahay cancelkaas none ayaad dooranaysaa anaga markaad waxaan rabnaa stroga inaan ku yara shaqeyno waana 37 pixel marka ugu horeyso shift ayaan la qabanaynaa si cabir isla ega oo inoogu sameeyo ugu hore marka sidaan markaan u sameyno kaliya sida u jeedo meeshan waxaa ku qoran add button sidoo kale markaad isla markiina aad sameyso meeshan ayuu wuxuu kugu soo furayaa contentiska hortii sidaa u jeedo waxaa ku furan buttoniskan dhammaan waa waxyaabahan waa animations asaga uu leeyahay shapeska inta haddaad ka doorato iyo haddaad inta ka doorato waa the same way farqi u dhexeeyana ma jira kadib marka waxaad ka dooranaysaa trim path ayaa ka dooranaysaa markaad trim path aad ka doorato kaliya animationka aad soo gelisay ayaad inta magaciisa ka raadinaysaa sidaad u jeedo waa trim pathka ayaan soo gelinay kaliya falaartiisa ayaad furaysaa sidaa u jeedo marka hadeertaani waxaan furaynaa keyframeska start upka ayaan daaraynaa qaybtan hore ayaan yarageynaynaa kadib midkaani ayaan dhanka rightka ayaan usoo yarawadaynaa sidaa u jeedo wuu tirmayaa ilaa iyo 100 markaan geeno marka sidaan ayuu ku bilaabanayaa marka balfiiri hadda marka wuxuu sameeyey cagsi ayuu sameeyey oo wuxuu sameeyey reverse ayuu sameeyey dib malahan kaliya midkan ayaad soo jiidaysaa keyframeskan qaybta hore ayaad keenaysaa marka sidaan ayuu noqonayaa marka qaybtan inta ayuu kasoo bilaabanayaa qaybtaasina ayuu ku dhammaanayaa waa animationkii koowaad aan doonayo oo trim pathka inaan idinla wadaago habkaasi ayaad u adeegsan kartaa marka inaad fikir kale aad ku dabaqdo waxyaabo kale waad alifi kartaa oo adiga ku gooni ah shape-ka labaad aan rabo inaan idinla wadaago waa shape sidaan ah midkan sidee ayaad u samayn kartaa sida u jeedo markiisa hore waa wuxuu iska ahay mid goobaba circle ayuu iska ahay laakiin sida u jeedo sidaas ayuu u furmayaa sidaasna ayuu ku dhammaanayaa sidee ayaad u samayn kartaa way fududahay marka ugu horeyso waxaad noo geysaa shapeskeena maadaama hadda midkaani aan samaynay hadeertaan uma baahnay waa iska delete garaynaynaa shapeka ama aan iska dhahno ficta aan ka qaadno intaan galin shapekani labaad waxaad ogaanaysaa marka ugu horeyso tusaale adigoo shapekani ku dooran ayaad waxaa rabtaa inaad shape kale aad samayso oo sidaan ayaad ugu soo jiiday tusaale ilaa iyo hadeertaa marka shape 2 inta laguguma soo qorin shapekan wuxuu ku dhex darsamayaa shapekii hore waana khaladaadka inta badan dadka ay sameeyaan ayay ka yara mid tahay control z aan dhahno marka ugu horeyso shape ayaa sidaan kugu samaysan kaliya shapekaasi meel inta ka mid ah ayaad klik ku siinaysaa kadibna shapekaad rabto ayaad markaasi inta kusoo horjiidaysaa sidaa u jeeda hadeertaan shape layer 2 ayaa meeshan kugu soo yar qalmay marka midkii hore midkii 1 ka ahay ficti aan iskaga yara qaadano ma rabna hadeertaan sidoo kale hadeertaan stroke hadeertaan uma baahni stroke ayaan dooranaya kadibna waxaan leeyahay none kadibna marka filka ayaan u baahanahay color solid colorka labadan kale linear iyo gradient way coloro oo la isku dardaray waaye laakiin aniga hadeertaan waxaan rabaa color oo solid color ah click ayaan ku siinaya marka colorkaasi kaliya ayaan u baahanahay marka ugu horeyso waxaan gelinaynaa marka ellipse toolkani ayaan furaynaa
waayo maadaama kan circlekani uu yahay magaciisa ellipse sida ujeedo waa ellipse tool meeshana firbal ellipse 1 waayo hadeertaan wax laba ku ah ma jira marka ellipse toolkaasi ayaan furaynaa waana shape layer 2ga gudihiisa ayuu ku jiraa markaasi waxaad samaynaysaa kaliya asaga ayaa wuxuu leeyahay transform ma isticmaalayno transformkani kale oo weynka ma isticmaalayno transformka gudihiisa ayaan isticmaalaynaa markaad furto kaliya scaleka ayaan rabnaa keyframekiisa ayaan daaraynaa xoogaa yar ayaan baxaynaa kadibna kan 0 ayaan ka dhigaynaa marka sida ujeedo sidaas ayuu baxayaa kaliya marka waxaan samaynaynaa reverse ayaan samaynaynaa midkan hore jira ayaan qaybtan inta keenaynaa marka waxaan rabnaa in uu qaab inuu kusoo galo sidaas oo kale ayaan rabnaa kaliya wax weyn ma aha wax weyn ma aha sida ujeedo reverse kaliya ayaad samaynaysaa transformkan waad xiraysaa marka ellipse toolkani ellipse 1kani ayaad duplicate ku samaynaysaa sidee ayaad ugu samayn kartaa kaliya waxaad leedahay control D markaad dhahdo marka hal mar shapekan layerkiisa aan iska soo yara xirno iligtiisa markaani anigoo sidaan ah ayaa waxaan taabanaynaa U waxaan rabnaa keyframeska ku yara jira shapekan inaan yara aragno marka midka hoose ayaan waxaan sameynaya xoogaa yar seconds yar ayaan soo yara baxayaa kadib marka hadda ayaa waxaan kusoo yara darayaa animationka aan rabo markaasi ayaan waxaan leenahay add kadibna waxaan kasii dooranaynaa merge path ayaan rabnaa markaani inaan ku baraatikeeno kadib markaan merge pathka sidaas noogu soo yara galo kadib waxaan furaynaa merge pathka kadibna meeshaan addka ah qaybtiisa moodka ayaan waxaan ka dooranaynaa addka ayaan furaynaa kadib waxaan leenahay subtract markaan naano sidaan ayuu noogu soo yara galaya sida ujeedo sidaan ayuu noqonayaa hadda slow motion ayaa ku jiro kaliya keyframeskaasi ayaa wuxuu u baahan yahay in la isku soo yara dhabeeyo wax sidaasa markaasi u dhib badan ma ahan marka waxaan filayaa shapekii labaad inaan sidaasi sahal aan ku sameynay haddaan u gudubno shapekeena saddexaad kaligiisa marka sidaa ujeedo haddaan si fiican u fiirno waxay u malaysaa calaamad loading markuu khadka sidaan u wareegsanayo oo kale camal inay ka turjumayso waana sida fudud ayaa loo samayn karaa qaabkani kaliya marka aan ku laabano shapeskeena folderkii shapeskeena aan ku laabano marka midkii hore midkii labaad aan view layerkiisa aan iska yara xirno markaan iska yara xirno kaliya markaad waxaan samaysanaynaa rectangle toolka ayaan dooranaynaa kaliya shift markaan ma qabanayno oo waxaan rabnaa cabir iska sidaas iska yar ayaan u baahannahay waxaan samaynayaa anchor pointiga ayaan waxaan keenayaa qaybtan inta kaliya waxaan dooranayaa bind behandingka ayaan dooranayaa kadib waan soo yara jiidaya waxaan keenayaa anchor pointiga qaybtaasi iyo marka hadeertaani waxaan rabnaa animationska kale noogu xigo ayaan rabnaa inaan ogaano kaliya shapekii saddexaad ayaan hadeertaan ku yara jirnaa kadib add ayaan leenahay waxaan rabnaa inaan kusoo darno shapekii animationskii saddexaad ayaan rabnaa inaan kusoo yara darno oo animationkan repeater animationkan wuxuu kaaga caawinayaa shaygan dhowr jeer intaad samayn lahayd asaga ayaa kuu koobiyeenayo repeaterka markaan doorano kaliya markaa asaga defaultigiisa 3 xaba ayuu kuu samaynayaa marka repeaterka ayaan furaynaa marka meeqa koobi ayaad ka rabtaa hadeertaan koobigani meeqa koobi ayaad ka rabtaa micnaha 3 ayaa hadeertaan dooran waxaan leeyahay tusaale ahaan 8 ayaan rabaa markaan 8 aan sidaas aan u doorano marka repeaterka asaga ayaa wuxuu leeyahay transformkii weynaa oo ku jiray scaleka iyo anchor pointiga positionka iyo opacityga kan weyn ma isticmaalayno waayo waxaan isticmaalaynaa transform repeater 1ka ayaan isticmaalaynaa markaan sidaan u furno marka ugu horeyso positionka qaybtan ugu horeyso waa x qaybtan kalena waa y haddaad xasuusato xisaabaadka x iyo y markaan soo baran jirnay inta badan macallimiintu waxay samayn jireen graphics graph oo sidaan oo kale ah lane horizontal ah lane vertical ah midka horizontalka x ayay ku qori jireen midka kalena waxay ku yara qori jireen y marka kan waa sidaas oo kale midkan wuxuu u taagan yahay waa x midkan kalena waa y marka x-kan ayaa waxaan leenahay 0 ayaan leenahay markaan x-kan 0 dhoono kadib rotationka ayaan rabnaa inaan isticmaalno rotationka sidaan ayuu noogu badinayaa kadib marka dhibka jira marka hadeerto wuxuu yahay sidaan ayuu iskugu yara qosayaa laakiin markaan anchor pointiga aan xoogaa yar aan adeegsado sidaan ayuu iskugu soo aadinayaa marka hadeertan kuma yara jirto in xabad uu sidan uu usoo yara galo kaliya marka waxaan ku sameeyey waxay tahay
mid walba meeshaan markaan haddaata 8 aan kusoo qorayo mid walba markaan soo geliyo keyframe ayaan u sameynayay tusaale markiis hore 1 ayuu ahay 1ka ka dhig oo sidiisa originalka ah keyframeka ayaan yara daarayay kadib xoogaa markaan yar dhaqaaqo 2 ayaan leeyahay ilaa iyo 8 xabo hal ayaan usoo gelinayay haddaad rabto speed kaliya keyframeska ayaad isku soo yara dhameynaysaa kan sidan ayaan u adeegsaday wax kala hadeertaan ma ahan waayo sheebka saddexaad maadaama aan ku jirno asaga repeaterka meeshii ugu horeysa effect animationka aan kusoo darnay ayaan meeshii koobiga ahayd ayaan keyframeskiis daarnay mid walba markaan soo gelinayn 2 3 4 ayaan dhahaynay marka sidan ayuu noqonaya inuu kusoo yara galo sidan ayuu noqonayaa shapekeena ugu dambeeya wuxuu yahay shape sidan oo kale ah waa shape horizontal ah laakiin wuxuu sameynayaa dhaqdhaqaaq sida maski oo kale camal ayuu sameynayaa horena u soconayaa kani way fududahay marka sida aan ku sameynay kaliya marka waxaad sameynaysaa rectangle toolka ayaad dooranaysaa hadeertaan line sidan oo kale markaan sameyno waa shapekii afraad marka shapekan afraad animationka aan ku dari doono waa animation lagu magacaabo twist markaan sidaas aan ugu yara darno isla markii wuxuu sameynayaa qalooc ayuu gelinayaa markuu sidaan asaga uu kugu yara sameeyo laba ayuu ka koobanyaa waa angle iyo center angleka markaad aad keyframeskiisa aad daarto xoogaa yar aad yara baxdo oo wax yar aad sidaan aad dhahdo adiga kan keyframeska kaliya haddana sidaan ayaad leedahay wax yar ayaad baxaysaa haddana keyframeska ayaad daaraysaa adiga maanta oo dhan waa ku baraatikeynaysaa marka intaanoo dhan markaad samayso oo xoogaa yar animation ah dhammaantood ayaa hal mar select saaranaysaa kadib marka waxaad leedahay control c kadibna meel banaan markaad imaado xoogaa yar aad kasoo yara baxdo waxaad leedahay control v haddana meel kale ayaad aadaysaa control v marka ayaga ayaa isku soo yara dhaweynaysaa keyframada ayaga ayaa isku soo yara dhaweynaysaa marka haddeerta marka waxaa loo baahan yahay dhaqaaqii hore socodkii ayaad u baahan tahay hore socodka asagana waxaan ku sameeyey kaliya waxay tahay in aan position aan u adeegsaday sida hadaa aan idinkugu soo sheego waa x iyo y ayuu ka kooban yahay positionka anigoo kan joogo oo dhammaantood markaan iska soo yara xirno shaebkii afraad ayaan waxaan taabanaya p position kadibna keyframeskiisa ayaan daaraya xoogaa yar ayaan yara baxaya xoogaa yar horey ayaan usoo wadaya haddana keyframeska haddana xoogaa horey ayaan usoo wadaya marka sidaan ayaan u yara sameeya dhaqdhaqaaqiina wuu ku jiraa sidaana wuu u soconayaa waana positionka ayaan u adeegsaday marka waxaan filayaa videogani kooban inuu idin caawiyey marka sheebiskani sida loo sameeyo waa sidan keliya waxaan filayaa inuu muuqaalkan aad ka wada faa'iideen fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysa janalkeena soo booqatay fadlan subscribe saar furaha laamada gambaleelka si ay kugu soo yara dhaca